Somali baby, Aday Samai, Somali baby, Aday Samai, Iso sama falkena, Wadani Yosefo, Iso sama falkena, Wadani Yosefo, Somali lawdo, Sahati bahayo samate, Illa musero hasehan, Infat sirda hasehan, 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 Sojero, suenu fendiyo. Subawel kudata, sinaw mahumade, Subawel kudata, sinaw mahumade, wasubah wanasani, alakana salama, wasubah wanasani, alakana salama. Somali bidawdo, saati bahayo samate, illa musehdo hasehan, ilbat sida hasehan, 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 sojero suenu fejo. Wasir meweiyo, yasam barwahe, wasir meweiyo, yasam barwahe, sadhi marana, waiso sarane, sadhi marana, waiso sarane. Somali lawdo, sahaki bahayo samate, Illa musehdo hasehan, Infat sida hasehan, 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 Sojero suenu fejo. محمد أحمد جالية الصومالية مقالة أصله قيبية كالدول أقوياك دليرادة وهوين ركبة كان عسلتها لماتي سؤال هذا waxaan galabta halkan joognaa inaan kulan wada tashi iyo wada isweydaarsi ah iyo talwadaaga aan la yeelano wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya mudane Yuusuf Garaad Dumar oo halkan magaalada Oslo ku jooga socdaal dhowr maalmood waxaan u mahadcelinayaa wasiirka oo 3 maalmood oo workshop ah iyo النادي كجري وأب دالات بس مركزنا لقي الله ما ذكر كهول يسينو سفر كجري إنه رجع أخباره إنه نوي ماذا أدنى نقول علينا والناس تبغى الوزير وحكلونا علينا ذلك أيضا الصوت هاي وساعدونا الآليين يمد نوي ومعسيين وحكلونا ما هذا ماذا كجالو طبعا ذلك كشقيين وزير يقول كان وسوته inta haddaan kaga gudbo waxaan sida caadi ah rabaa inaan ku furfuro kulankeena aayadaha qur-aanka kariimka ah oo noo akrin doono Ismaaciil Nuur Xayfo. Bismillahi rahmani rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا السلام يا سلامة إسلامك. وحا إلهي سبحانه وتعالى ومهلا يا إلهي يشركنا كذا قبل كوليسته وخير يبركو كل ماذا القرآن كلنا وسيركنا يدعو أيتهاي بالرمضان. مدن وزير كأريمها الدبدة يسكاشك عالمها يوسف جراد عمر وحاولت هذا ما تفرديا أما قلبت تفرديا شالية الصومالية ده النرويج وسكوت دوغن علماء الدين كي وحجرت كي مدح دقمدية حوانك دلنيرة iyo aqoon yahanada anigoo hadaba jaaliyada ka wakiila kuna hadlaya magaceeda
magacaygu waa baashe maxamed muuse waxaan ahay xildhibaan laga soo doorto magaalada Oslo golaheeda deegaanka ee magaalada Oslo waxaan kaaga mahad celinayaa in aad marka ugu horeysa na siisay maalin dhan oo safarkaagii aad dib dhigtay taasina ay noo tahay fursad iyo chance aan kaaga faa'iidaysano si aan isu dhaafsano xogta aad ka hayso dalkii hooyo sababtii aad u timi annaguna aan markaa kuula wadaagno caqaladaha iyaga iyo dhibaatooyinka halkan naga soo wajaha iyo wanaagayaga mudane wasiir jaaliyadda Soomaaliyeed tiradeeda waxaa lagu qiyaasay 42,217 qof ayaa lagu qiyaasaa waxay ku kala nool yihiin 19 gobol oo dalkani ka tirsan yahay iyo 432 degmo boqolkiiba 50 in ka badan ayaa degan magaalada Oslo iyo agagaarkeeda magaalada Oslo waxaa degan ilaa 700 oo kun oo qof dad lagu qiyaasay waa jaaliyad runtii markaan waxoogaa ka yara hadlo curdin ah oo u nugul dhibaatooyinka celcelistaana joogtay dalka Norway ilaa 5 sanadood waxaa lagu qiyaasay cudurda shaqeysa ee Soomaaliyeed dhinaca ragga ilaa 40% haweenkuna waxa weeye 24% waa tirakoobkii 2016 jaamacadaha iyo macdada la siman 2016 waxaa ka baxay ilaa 2019 arday lacagta aan xawilo ee aan dalkeena hooyo u dirno waxaa lagu qiyaasay ilaa 324 milyan oo nooshka karoon ah Norwegian krona una dhiganta ilaa 730 milyan oo doolarka Mareykanka ah mudane wasiir jaaliyaddu waxaa ka dhisan oo ay leedahay dalka Norway in ka badan 45 markas ama goobo cibaado oo ah masaajido dadkana nolol maalmeedka adag ee soo wajaha ay joogaan imaamo Soomaaliyeed oo tala bixin ka siiya magaalada Oslo waxaa ku yaalla masjidka Tawfiiq oo ay nagu qaadatay inaan dhisno ilaa 20 sanadood oo runtii annagu markaa iyadoo laga cararayo ribo lagu dhisay lacagtii aan urursanay masjidkaas oo ay ka xubin ka yihiin in ka badan 10,000 oo qof oo Soomaaliyeed ay xubin ka yihiin dalka oo dhan waxaan leenahay aqoon-yahano iyo cilmi baarayaal ka shaqeeya jaamacadaha iyo macdada la siman waxaanu leenahay dad badan oo waxbartay oo dalkan degan oo shaqeysta waxaa weeye dadka ugu badan ee Soomaaliyeed inta xagga ragga waxay ka shaqeeyaan dhinaca gaadiidka dadweynaha waxay ka shaqeeyaan xagga basaska iyo taksiyada iyadoo imika runtii ay hawooyinka Soomaaliyeed ee hooyooyinku farbaan ragga ku hayaan oo ay basaskii aad iyo aad u qaadanayaan ruqsadii basaska mudane wasiir dagaaladii sokeeye ee dalkeena hooyo ka dhacay ee aafeeyey ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto ayaa waxaanu nahay natiijadii ka mid ahayd si adigu og tahay adna aad ka mid tahay gurbajoogta Soomaaliyeed ayaa runtii jaaliyadda Soomaaliyeed waxay u timi mawjado ama waqtiyo kala duwan 1980kii qayb ayaa yimid xilligaas oo waalosnaan dagaaladii sokeeye ay bilaabmeen 80yadii aan dhahdeen burburkii dowladdii Soomaaliyeed 1991kiina waxaa timi mawjadii kale ama qaybtii kale qaybtii ugu dambeysana waxay soo gaadhay waddanka Norway 2006 xilligaasoo iftiinkii maxkamaddu markuu soo ifay uu dagaal ka dhacay oo dabeedna aan si fiican loo alfan caqaladahan hor taagan laba ayaan u kala qaybinayaa qaybta koowaad waxa weeye qaadashada carruurta oo runtii iyadoo dalka Norway ay leedahay dhaqankaas oo ah in carruurta xoogga la saaro la ilaaliyo aan la ogolayn in gacan la saaro aan la ogolayn in wax loo geysto ayaa haddana had iyo jeer waxaa isku dhacaa habkii ababinta ee dhaqanka dadka Soomaaliyeed wateen iyo ka Norwejiga oo hab ka duwan u fakeraya inagoo xaggii faamligeenii hooyadii walaaladii ayeeyadii iyo dadkii dhaqaalayn jiray iyo dhinacii edbinta carruurta si kulul wax loogu sheegi jiray mudane wasiir taasi waxay sababtay in dad tiradooda aan la hubin oo tirada waa sensitive oo runtii lama sheego laakiin dad badan oo Soomaaliyeed carruurtoodii laga qaaday oo ay markaa dhacday in dad Soomaaliyeed runtii annagoo xanuunka la wadaagayna oo carruurtoodii u diray iskuulka hooyo iyo aabba afar carruur iskuulka u diray cuntadii usii karinaya sugaya inay soo noqdaan layidhi ma soo noqonayaan waxa weeye 24 saacadood gudahood loo soo sheegay xanuun badan bay leedahay hase yeeshee Soomaalida ku maamahda kitaab galkiisii laga saaray ilaahay baa sayax baday dhibaatada waa mid qurbaha ka timaada iyo mushkiladihiisa ayuu leeyahay marka carruuraha la qaaday runtii way jiraan dad badan baa laga qaaday
qaar loo soo celiyeyna way jiraan Ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo celiyey iyadoo ay markaa kala duwanaanshaha haddii aan cabiro ilmaha lagu qaadanayo dalka wuxuu kaga duwan yahay annagoo nidaamkan dad badan oo naga mid ay runtii ka qayb qaateen oo fahamsan in haddana hooyada Soomaaliyeed ee traditionalka ah marka ilmaha laga qaato la barbar dhigi karo hooyada Soomaaliyeed abaaru markay dhaceen ka soo lugaysay meel aan biyo iyo baad lahayn saddexdii carruurta laba ay ka dhimatay way arkaysay wayna ansatay laakiin kuwani markaan u dhow daloodo oo la hadlay la sheekaystay maxkamadaha u raacay waxay leeyihiin carruurteeda qaatay oo waxaan la taaban karay marka culayska iyo dhibaatadaas ayaa jirta oo runtii na soo waajahda marka waxa weeye runtii arrintaas waa arrin loo baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinkan halkan oo wax ka dhacay oo la toosay jaaliyadda Soomaaliyeed haddaba waxaan aragnay dowladaha Romania iyo Hindiya inay gacan ka geystaan oo ay caawiyaan dadkooda qurba joogta ah marka runtii talo noocaas oo kala hiil noocaas ayaa laydinka baahan yahay haddii Ilaahay idmo si markaas arrintaa iyada ah wixii aad ka qaban kartaan aad ka qabataan hase yeeshee Soomaalida waxay ku mahmaahi jirtay af jooga looma adeego su'aalaha ayay kasoo dhex bixi doonaan hooyinkii qaar ka mid ah ayaa halkan fadhiya caqabadda labaad ee mudane wasiir halkan naga soo wajahdaa waxay tahay iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed oo halkan degan ee dhibaata ka haysto dhinaca sharciyada aanu dalkani una soo dhaweyn Norway uu yahay dalkayagii labaad si fiican noo soo dhaweeyey aanu ku dhaqanay shaqo ka helay si fiican ugu noolaan waxaa dhacday dad badan sharciyadii lagala noqdo taasoo ku bilaabantay 100 qof oo Soomaaliyeed oo jinsiyadda Norwayjiga haystay oo markaa lagu eedeeyey in ay been ka sheegeen jinsiyadooda oo markii ay dalka soo galeen aanay baasaboorro kale ay lahayn taabicineedu maaha in Soomaalinimadooda la isku haysto laakiin waxaa la isku haystaa in aanay run ka sheegin markii hore oo ay sharci kale lahaayeen waxaa iyaguna 500 oo kale ayaa iyana iminka qaar ka mid a degniino u timi oo iyana la isku dayayaa in laga qaado ama ka cabsanaya in lagala noqdo sharciyada Norwayjiga waxaa iyana 1900 oo qof oo kale dhinacaas waa dhinaca jinsiyadaha 1600 oo qof ayaa iyaguna runtii cabsi ka qaba oo kadib intii dowladda federaalka ee 2014 ay dhalatay ayaa la yidhi maadaama ay Soomaaliya waxaa loo qaybiyaa 3 economy ahaan meelood waxaa la yidhaahdaa dhinaca gobollada bartamaha iyo koonfurta Puntland iyo Somaliland marka waxaa la yidhaha Puntland iyo Somaliland waa relative peace ama waa nabad oo runtii dadka waa lagu celin karaa dadna iskama soo dhiibaan haddaba gobollada dhexe iyo koonfureed 1960 qof oo kasoo jeeda ayaa waxa weeye waxaa la yidhi markii aad timaadeen waxaa iska soo dhiibteen xoogagii al-shabaab meeshii way ka baxeen dowladdii baa dalkii qabsatay arrintii magangelyadoonkiinii wuu jabay markaa sharciyadoodii imka hakad ayay ku jiraan qaarna waxaa loogu soo jawaabay in digniin dalka saarista la siiyey runtii waxaa mudan iyadana runtii oo dhibaato jira inay group ay ka haysta ay jiraan dad iyana Soomaaliyeed oo tiradooda garan laakiin 2 ku dhow oo iyaguna runtii baasaboorka Norwayjiga loo diiday iyadoo lagu eedeeyay markaa inay laba magacalayaal yihiin oo markii ay dalka yimaadeen ay laba magac sheegteen waa aabbayaal iyo hooyooyin dad 15 sano deganaa carruurtoodii jinsiyadii waa loo ogolaaday kadib markii aan u dagaalanay laakiin iyaga waxaa la yidhi jinsiyadiinii baan la garanay marka mudane wasiir waxaan jecel lahay inaan kula wadaagno in loo baahan yahay dib u soo celinta baasaboorkii Soomaaliyeed iyo waraaqihii Soomaaliyeed iyo waraaqaha astaanta Soomaaliyeed ku duugan tahay inuu la silmo oo la tartamo oo uu la mid noqdo oo hor fadhiisto dowladaha Scandinavianka sida Norway oo kale wasiir anigoo soo gaabinaya qodobadan soo socda ayaan u arkaa inay muhiim yihiin anigoo la tashaday jaaliyadda waxaanu idinka baahannahay horta runtii dhibaatada halkan ka dhacdaa waa dhibaato waafaqsan sharciga Norway iyo dalka Norway ee aanu joogno waafaqsan idinkuma dudayno mana lihin wax ka qabta sida laakiin doorkii aad ka ciyaari lahaydeen ayaan u baahannahay marka waxaan u baahannahay hiilka in hiil ay isla garab taagtaan iyo hoob waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurta laga qaatay iyo inta cabsida ugu jirtaba doorka aad ka ciyaari kartaan aad ka ciyaartaan haddii lahayd inaa hiil kaasoo kale isla garab taagtaan dadka Soomaaliyeed sharciyada lagala noqday iyada oo la adeegsanayo hab diblomaasiya oo laga codsanayo runtii dalkeennii nabad baa ka jirta lama odhan karo dalkii waa dhibaato nabad baa ifaysa
nabaduna way jirtaa meelo badanna way ka jirtaa meelna waxbaa u dhiman shaqadiinana waan rumaysanahay balse la yidhaahdo kolley dadkan halkan soo gaaray iyo intaa soo socday waxaan idinka codsanaynaa inaad sharciyada siisaan dadkan dhaqaalaysaan xanaanaysaan sidaa u hayseen inaydaan waxba ka bedelin in dib loo soo nooleeyo dib soo nooleynta iyo la xisaabtanka dalka Norway iyo wadamada Scandinavianka si waraaqaha astaamaha Soomaaliyeed leh iyo baasaboorkii Soomaaliyeed uu dib u soo noqdo in dawladda Soomaaliyeed aanay iyaduna qayb ka noqon haddii ilaahay idmo heshiisyo dawladda nala geli karo oo dib u celis ku saabsan iyo kuwa haddii ay kuwa kale jiraan waxaan codsan lahay wasiir in aan maaragtay aantaasina aan laga noqdo haddii ilaahay idmo sidii haddii ilaahay idmo sidii laysku xiri lahaa ayaa iyana mudan jaaliyadda Soomaaliyeed iyo dalka Norway aad iyo aad baan runtii jecelahay inaan idinku xidhnaano inaan maaragtay aynu xiriir kala qaadano inaynu maaragtay isu dhow daloolo oo wixii aan idinla qaban karno aanana idinla qabanno idina aan caawisaan fursadana waa mid runtii qiimo leh guddiga gabagabadii waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo marka ugu horeysa inaan soo dhaweeyo doorashadii la doortay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ah runtii ka baxay jaamacadda magaalada Oslo aan garanayo muddadii 20 sano ugu dambeeyayba aan runtii wada joognay dalkan oo runtii aan ku faraxsanahay inuu yahay xubin ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo isaguna ah wasiir wadanaha golaha baarlamaanka ee hoggaanka wasna jaaliyadeeda ka tirsan runtii waa la isu faanayaa qurbajoogta Soomaaliyeed waxaan kaa codsanayaa haddii ilaahay idmo inaad ugu salaamto golahagii wasaaradda golahagii wasiirada iyo golihii baarlamaanka labadaba inaad ugu salaamto haddii ilaahay idmo waxaan aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa kulankan aad nala yeelatay iyadoo runtii aan hadalka u banayn doono dadka intiisa kale ama adiga lagu soo dhaweyn doono waxaan mahad aan u naqayaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay bahda saxaafadda ayaan mahad u naqayaa Nuur Sam News TV-ga qaranka iyo Xasan Raasta halkan TV oo isagoo live u duubaya iyo wardoon.net iyo Nuxur Media oo iyaguna halkan goobjoogka meediada Soomaaliyeed ayaan si gaara iyagana mahad ugu naqayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم أدي محسنتين دمانتين سودوينت وروح ببرن كنتي مارتي تعبتي إيسا لسه جربتها وحنا هو أركا قف يقاني ويري همشان مرتقات اللون فوالس نقاني عبد ساحب في الوقت ده سوق البسواس نقاني دوب واس نقاني لكن واحد كوضع واحد يوصل مثلا سومان لماذا يدرك مثلا الكعشية يدروني مركا شرف يجوي نمترتو من يجوي نمترتو إن عن سومان لما سكون سنو إن عن وضع كان يسكور سنو إن عن دولتنا ولا نسنو ما أنت عليك كنت ربنا تذكر كنت هدية بيرانو شرعنا كونا جوهري أيه كنت مركا أدي هذا فرحسن هاي إن دوسر دويسان عينيه قرانك ندي دوسر دويسان عالق الصومالية لينا دوسر دويسان في الصومالية وإنت نجد حيث أو ضدك كلام من دون هاي أن سكوب برجران منه مركا وشرف ويبنتي مركا تاس أي بيرجلسي إيه ركشة كيوم حالي هذا سعودة كيورمو يروح حكومة كشكيو كذبنا هذا أما أريد تسجيلية أما بيح كذا أدم الديسان أيوة سكنيه كنا هدي لا واحد أدم هذا عليه حلفه أيده وراكنا أخي عبد يوسف النصرتيني برنامجك يروتي حوارك المسيح اللي بانكو الباشا وأهم ما تمد أدي سكاح سومالي كذبنا كنا كتستنا المال تركوك نوع واحد بالله هو تردي ولا وارد انت يجي من العكر الدرن تتهم انا العكر مش هقدر انت تتهم عوضك مركا الادي الربوي والدي كانوا عليه سعودك هالكانوا بيت وهو اصل فورم وتقنان وهالكان كدعاء وشري توصل هذا السعودي ومدحوا انه عالمك يسوي مادان مركاسنا لو كلا حقاته وحنا لو كلا كورسدو sida colaadaha loo xaliyo sida la isula xiriiro dad aan saarki jirno intay saarkaan kulamada baarlamaanka oo dib u sii baarlama
waxyaabo badan lagu kala korarsado ayaa waxaa lagu martiqaaday sanadkan waxaan u malaynaya markii ugu horreysay inay tahay 15 sano socday waxaa qabanqaabiya dowladda Norway wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxaa wada qabanqaabiya humanitarian dialogue oo la yiraahdo HD oo inay Swiss iyo xaruntooda u marayeen laakiin barnaamijka wax ka qabanqaabsan marka sanadkan waxaa lagu martiqaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu martiqaaday وبلغ قاضي وزير باكر كتب ووضع كان مستوى بالبلغات كاسيات وسمي لكن مركز هوش السروي أيام مدحونه وكعب صدق وكي شيشر أسمى الدنك الواقع مقابل ومدحنا إذا تسوي معنا شيء وأدسرور نعي إنه مدحونه كعب صدق إنه أسوي كتب سيداس أيوة أسوي المركز أنا كعب صدق إن عن بدل كيسي هالكلام إماده سيداس أنا تقول شركة شركة مركز إمي لما بعرض سعودي يهبين كهريسي أو مرتقاد يركوش فرصة وين أيام كهري سواليهان أو إن أنا أمحير الرسم أيو دد مهم هذا عن خلال هينين قاركو سوشيال ميديا كوشركرين كوفي أنان تابين بيكي ومن حبركة هنتري كوفر أفريقيا جو كيري ومريكن كا قويها رمها دبدا رجع عسل سوارني مجالين أو EU دروقات بسنة الكتيبة لو تروز الأهل الدبلة ودرال يورب يا أفريقيا يكسر لي أمينة محمد كسرتي كينيا ويفردي أو سوارني نفرت مركب ورسل وده هذا القبائل يعني هرب سوارني لكن وقت إسماني هنا كوشة كوم وده وزير كان معي بدأ السودان مركز سويه الرئيسي يعني هل كان فرق دورية قادمي مركب ما راح تسمع هاي قال عن فرق سكوار يعني وكسر 20 يجري قدوين يجري مركب ما راح تعرف اللبا جارع يعني 19 ميس يورو مركب بدأ تسدد لها مركب كلام الله إلا أهم الملايين لو ساعة لو كم دفعين marka fursadaas ma helaysid xataa shirka waa marka tartaan ayuu ku behelay ana ma helaysid saaro kala la soo fadhiya qof marka khudbada akhrinaya oo kala tagay laakiin marka qofka laba saac isla fadhiyaan aan note la kala qaadanayn isoo sharxta weydiin karto waxa la taa sheegi karto isagu ku sheegi karo wuxuu rabo ku weydiin karo wax badan ayaa maartay la isku weydaarsan karaa oo ra'yi kaaga bixi kara marka joogkeed laba habeen miisku wada cashaynay taabin beeki waqti ayaan isla qaadanay koofi anaan habeen baan miisku wada cashaynay oo isgarab fadhinay magariini sidoo kale marka waa dad aan wax kala kororsanay aan isleeyahay maaragtay xiriiro uu la sii dabageli karo oo waddankeeni wax looga qaban karo ayaa ka soo bixi kara ama la isla kaashan karo wasiirro kala badan oo kulanay waa jiraan oo wadamo kala duwan marka waxaa taas dheer mawduucyada la isugu yimid iyo doodihii meesha ka dhacay shal galab oo kale waxaa is hor fadhiyey Colombia ma aqaan inay la socotaan dagaaladii ka socday iyo hore faati u dhihi jiray iyo markii dowladooda la wada hadashiiyey ee ay heshiis galeen dowladana xoog ku lahayd inay ka warhaysana qiyaasaya shal waxaa wada fadhiyey rebelka ragga madaxda ahaa ka mid oo dagaalami jiro ودورك كوجري أو هؤلاء البيكحسوا كو أيديسنا يوزير كلمة هديبة كولومبيا وهذا كل مني يوزير كلمة هديبة وطن كان بورد اللي هنقوله وزير كمركب لا وزير كي يوضع هذا إنكي جبهة كه هذا هو هشيس وحكيش كان يصير هشيين سيدو هشيين سيدو هذا كل لوني البروسيس كل مريض وحيابه لاش كيسنا قرار بقرار كانوا هيك أدوسري هي آخر كي إنجليز أفكار أنا قلت أن يسري ومرح يمكن ولا سعودي ما دعيت تحصل كلا إلا تحصل كلا أنا ونهاي وقولي حتى أن تقول كل جلنا عن وضع حظي وتاني شيء مثلا بالميس أن مارتي أما اسمه منه إن أنسلا وش كانوا وش أسوي ما دعيت بركة كل من نوع عسى يجري كولومبيا laga hadlay Soomaaliya laga hadlay hadalka jeediyay markaan jeedinay waxa bixi laga fadhiyay Amina Maxamed oo Kenya sida ay u aragtay arrimaha waddanka Soomaaliya isbedelada ka socda ee ka warantay
برهان اللي راح إثيوبيا كسر هرنا وزير مرة نظيم مرة سفيرها حتى أنا لفترية هير وزير لكن لفترية رئيس الوزراء ودنا على الملك تلفونية سوونا وإثيوبيا سريع ورا تكسب دلنا كسرها أي لو شيء كورنا سوى العسل أيام لو سوق قريب وحفلية تك من الإنسان يكملها تعبين بك سؤال من الوي marka adigu saddex maalmood oo runtii wax badan shakhsiyan iiga kordheen inaan ka barto si aan insha Allah taala waddankeena wax uga kordhiyo xiriiro badan aan ka samaystay waddan ahaan iyo dowlad ahaan samaysanay wax badan oo mawduuceena ah mawduucan jeediyo waa koobnaa haddii la soo koobo jumlad lagu soo koobo waxaan ka sheekeeyey isbeddelka dhacay oo idinkana aan idiin taaban doono waad la socotaan isbeddelka dhacay ee aan samaynay waddankeena iyo waxaa min ku eedeyn jiray qaar badan inaan kasoo gudubnay meesha caalamku laakiin ay sidii ay awal noola dhaqmaysay ay weli noola dhaqmayso marka anagu isbeddel samaynaya dhinaciina isbeddelkii aw kaa ayaan doodaygu ahay waxaan u malaynayaa kolley dadka qaar inay la laabteen fikir inay ku dhalaysay iyo su-aalo aan rajeynaya inay dabagalkooda markaan sameyno ay mala dhalaan marka safarkayga sidaas ahaa laba maalmood iyo hal habeen ka horreeyay ayaa u yimid markii la ii sheegay communitygana sida walaalkay uu sheegay baashi maanta ku darsaday intii hadda waqti celiin iyo kala orod la isku arki lahaa aad ayaan ka shaqeynaya in aad maartay saacada aad in aad maartay intaynan isu soo baxeen hawsha la qaabshay protocolkeena واجعل هدان ما أنت ميزانية ده هاي قبل بدل يقول بدل ديوتر بارتين تكحيه وافق كل دوق وهذا أو سيبروح بدل ولا بيسيء قانو واحد هذا البورك الجوبي كل واحد في له قبل قابلي شركة بالحوينة هذه وحقا معمولة واجعلها لكن ما هي عاد الكتب بالله ما هي لكن إن شاء الله تعالى وطريقة نصر هذه هي أفريقيا ما هي عالم كله واحد ما لنا تذكر لغتها وفي عنا لغتها وروح على السنة ذاك نيتف كا أيام السنة مركا شغال الدولة هذا السلك هو المشارك يثبت الكسرة الواقع كاس وحوي قالها وزير هذا أي حسابك وين كبر الوضع أما هنا وقت حاجة وقتك أما هنا وقت حاجة شقادة أما هنا وقت إسدامجالك وزير ولا منسيبك وزارة بس أيوك ولا كي هذا الكود إنه مارتي توشكا كودار بدون مرة وزارة ولا من الجوده أنا ما كنت في وزارة أنا ما هتبدأ نيجر وقبل هذا الكرشة وحمل شيء 6 أجاسيم واحد وزارة إلى هاي يحويها جوتنا يجتمع شيء يوزن دولة هي يوزن كهيك ما بقول كي يوم الفريسان on سكوبرنا ما نتوقعش قبل وحوي هاي وحوي قبتل وحوي مارتي سلوا حوارك يهب يقوليه وقف شغالها إن مارتي هرمر الجارسيو ورجلي هاي رجل اسمك على مسيو اللي أوجي هاي وحوي جعلي هاي نور مد مركب أنا فاهم أنت كان الرجال اللي ما كانش شغالية مد بيروح على بيننا الموضوع زي كريم الجد ولكن هو مش هاي ولكن استلم السعودية كاس قاعد بيصير دور يا اسمع وقتي سوى بركة كتر هذا اللي قاعد قفل محكمة الله مش هيجيبوه مركا ماشي لازم تكبرني وأنا قصدني بالوربة إن أن مر شرنو سيدا قواب تصل أو هذا حتى سبب مغانعي إن وزير كحيات كان وزير دولة شركة ودان لكن إسلا قرقي شركة كدعي تاسم قصدني شركة كحيات مركان تقلي سنة بالكد مركان تقلي شركة كحيات واحد سوى جيبين ويلاهلين والوفو تهدش wax badan ayaa dhacaya oo aan maartay inaan iska wareysano loo baahay marka labada week ba marba ka dhigna hada laakiin arrimuna waxaan ku soo rogay week walba in agaasimo kasta waaxdiisa ula shaqo shaqadiisa
si ayaga laftooda ra'yi ugu yimaado oo markuu imaanayo shirkan isagoo ka warqabo waaxdiisu waxay asaga say la tahay kaliya maahane shaqaalaha waxay la tahay isagoo ka warqabo sida in uu shirka noo imaan karo hadhowna markaas aan meeshaas ka waday marka iyaduna dardar cusub ay shaqada gelisay waaxyaha anigu waaxda aan culayska hadda saaray oo waaxda protocolka oo aan sugi karin in aan dad kusoo biirino protocolka qaranka la yidhahdaa horta protocolka wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha dadka la jooga oo waaxda protocolka u qaabilsan oo xafiiskiisa la shaqeeya waxay ka yimaadaan waaxda protocolka wasaaradda arrimaha dibadda ra-iisul wasaaraha dadka la jooga oo ballamada oo protocolka u haya oo waa wasaaradda arrimaha dibadda dadka sare marka protocolka qaranka haya haddii xaflad weyn la dhigayo dadka protocolkaas maamulkiisa haya waa inay ahaadaan waaxdaas waa sida qaranka u shaqeyn jiray ama waddan u shaqeeyo laakiin hadda capability-ga iyo dhaqaalihii iyo wixii ayaa meesha yaala waaxda protocolku waa wax fiican oo shaqo fiican qabata oo tiimna u jooga madaxtooyada tiimna u jooga airportka joogta ama airportka ka shaqeeya tiimna u jooga wasaaradda arrimaha dibadda gudaheeda tiim kalena u jooga xafiiska ra-iisul wasaaraha sidaasay hadda ku shaqeysaa anigu marka waxaan hadda ka tababaro sidii loo siin lahaa dhalinyaro cusub oo loogu beerin lahaa waaxdaas ayaan wadnaa waxaan wadnaa sidee waaxda lafteeda dib inta loogu fiiriyo shaqadeedu sababtaa waa inay gaartaa meel walbo qaranka ah rajada aan leeyahay waxa weeye dowlad goboleedka magaalo kala fadhida wufuud ajnabiya way imaanaysa marka wufuudda ajnabi markuu imaanayso qof u tababaran ugu yaraan tababarka aan siinay haddaana hataa annaga naga tirsanayn qof tababarka aan siinay oo yaqaano a b c d maarta protocolka iyo waxa saxda iyo waxa khaladka oo aan la handeli karin oo aan laga qalloocin karin in uu joogo gobol walba oo dhowr ruux oo wasaaradda arrimaha dibadda soo tababartay oo la soo shaqeeyo waaxda protocolka oo annaguna haddaan shirar waaweyn waxyaaba weyn abaabulayno aan u yeeran karno oo waddankii maaragtay laga heli karo dad tababaran shaqooyin kala duwanahaya dabcan waa in lacagtaa bixisaa dowlad goboleedka lagu tababarayo ama mushaarka ugu yaraan inay bixiso marka waaxdaas culayska saaray waax labaad ayaan rabaa in aan abaabulo oo ah waax ku saabsan research and analysis in dad wax baari kara oo mawduuc marka uu yimaado mawduucaas inta idaacadaha laga maqlayo in ka badan oo cilmi ah oo taariikh ah oo analysis ah samayn kara ayagu dhexdooda oo talooyin macnale dowladda siin kara madaxda sare intaysan go-aan qaadan talooyin macnale siin kara research la samayn kara analysis la samayn kara oo markaa go-aan qaadanayno uu ahaado go-aan aqoon ku salaysan oo aan ognahay in maaragtay laga soo baaragtay waa wax aan hadda jirin oo aan abaabul rabo waaxda kale oo aan samayn rabno waxa weeye waaxid jirtay laakiin aan shaqayn waxa weeye wasaaraddu waxay lahayd machadka diblomaasiyadda meel la yidhaahdo oo lagu tababari jiray diblomaasiyadda qaranka diblomaasiyadda soo gelaysa wasaaraddana shaqaalaha cusubna lagu tababari jiray markii muddo la joogana ama xirfad hor le soo korto ama mawduuc hor le isagoo shaqaalihii kamid ah haddana tababar labaad loogu diri jiray ama saddexaad daal yaroo gooni u dhisan ahayd qofka wasaaradda arrimaha dibadda yaqaan daartaas waa dintay waxaan arkay markaan meesha tegay proposals dhowr oo la qoray oo daartaas ina loo dhiso oo maxadkii lasoo noolay oo lacaga ku baxayeen oo aan qabsoomin weli inkastoo qurni ballan qaaday laba dolar ballan qaaday ay jireen anigu waxaan goostay in daarta dhismaheeda iyo aqoonta gudbinteeda inaan la isla sugin haddaba xafiisyaan leena wasaarad weynaan noo dhisa qorar badan aan ku shirno kuwa aan ku shaqaysanaan leena marka tababarkii inuu hadda bilo oo machadkii la furo ayadoo la dhisin daarta shir jira iyadoo aan wada qabanay inaad aragteen waa laga yaabaa wasiirka arrimaha dibadda ee qatar iyo anigu aan qabanay qolka markaan soo galnay intaan oo kale oo wariyaan qolka ka jeedin lahayn hadalka waxaan aad ula yaabay maxaa asaan loogu daranaya soomaaliya laakiin ma ahayn waxay marka u horreysay fursad u helaan inay wasiirkaas su-aala ka weydiin karaan website-kaas marka laba saddex su-aalo hore aniga la weydiiyey kadibna isaga laga leexday soomaaliya nagama wareysan waxaa laga wareystay
arrintii la hagay marka qalaasaasa ku dhex dhacnay markaan meesha tagnay ayagoo kulligood aan soo wada marnay kulligood ballanqaadyo waaweyn ka soo helnay ayaa arrintaa la tashi aad u qoto dheer oo dhinacyo badan aan la yeelanay markii aan qaadanay markii aan madaxdeena is aragnay waxaan u haystaa mowqif shariif ah inaan qaadanay oo dadkaas ishaya oo walaalaheena oo saaxiibadeena oo xiriir qoto dheer aan leenahay in aynaan anagu la kala safan inaanan dagaalkooda ka qayb gelin inaan ugu baaqno inay heshiiyaan inaan ugu baaqno ururka jaamacadda carabta ka wada tirsannahay oo xaruntiisu qaahiro tahay masaarika uma xumaynayo ururka dalalka islaamka ka wada tirsannahay oo xaruntiisu jiddo tahay oo sacuudi laguma xumaynayo labada urur ayadoo la isticmaalayo in maaragtay la heshiiyo oo heshiisku socdo annaguna waxaan soo aragnay inaanan joogin meel aan dowlada la dagaalano aan cadow samaysano annagu inaan haysano dhibaato lagu filan oo xal u baahan oo cid walba aan gacan uga baahan nahay oo kuwa heshiis iyo kuwa iska soo horjeedaba aan gacan uga wada baahan nahay marka inaanan doonan annagu cilaaq hor leh inaanan doonan ayaan go'aansanay shacabkuna waa nagu taageeray waana ku mahadsantihiin waxaan u malaynaya haddii shacabka iyo dowladdu isla socdaan meeshii la maraba waa meel laisku og yahay waana meel wanaag ah oo insha allahu tacaala wanaag ku dhamaanaysa marka taas ayaa loogu weynay wixiina soo maray insha allahu tacaala maaragtay soomaaliyana hore mowqifyo adag oo u qaadatay oo dalalkan hadda xulafada laftooda haddii la fiiriyo 79 Soomaaliya markii kan David uu saxay saadaad dalalka jaamacadda carabta ku jiro dhan waxay u jireen xilin marka laga reebo saddex dal oo Soomaaliya hogaaminaysa Soomaaliya, Suudaan iyo Cumaan kaliya ayaa safaaradooda qaahiro inay sii shaqeeyaan oo ay furnaadaan ogolaaday in dalka Masar oo safaaradooda caasimadaha ku lahaa Muqdisho ku taaleen inay furnaato leeyihiin Soomaaliya kaliya آخر تاسع لسوق سرعة وهذا حرمت الجامعات عرفت وتلا الرقاهية وتونسية لقي مركا هذا هو الكوديري كسرون الدنيا ما هذا هو المجيء دونه انتو كنتم بس هذا كسر دونه نذر وراكي مربحين المسيح اللي بام picture good and good نور نحن ما كان تكتب أيضا كلهم كفوين ناس لكن هذا دي ببعضه الصومالي كيف كرتوا عالم كرر بدن الصومالي يجوكوا الدولة الصومالية كنت مركز دين شعبه تذكر إنه يتعشى تذكر إنه ويرتها إن واحدة قبل كرتا إلى قبل توي كلامها لكن تبرت آد قبلها أمني أيق عن الكسية أنا ولا نسيت أيق عن الكسية حلا وهم بشكل على دكتي سمعت دولة مركز فرصة ودي شيء رايرتي كو يكلم يكسر تحت يكلم أفراد منا معها محاكي صعد الأسرة يسمى الأسرة سير المرشد سوري أنا قلت شيء ما priority الكروات مع وجعلنا له إن واحد بالتصور مني واحد بس صحيح إذا كان قاعد نسينا لكن هذا مو نقطة هذا مثل ما أنا وحنا وزير الصومالي وزير الصومالي هذا ما الصومالي اللي مفاد شيء بالو بيتكلم وده بان عليها أنا كلاس من عليها كي مرتقالية كي كرمشي priority كمان يقول كرو قف كاس شرعنا ما هيستو محل له وده كنا نوقف حيننا لأنه قاتل ما يبقى هذا هنا إذا سوء استعمال وعرسني دلوه سوى مشغية هذا مريك كدكتور عليين هذا سعودان واحد بني دولة ما هكذا دولة بدنا كعلية
dowladdii naga qaadan weyday dadka wax ay imaanayso meeshaan oo wada hadal iyo cilaaqaad kale iyo waxaan kaloo shaqeynaya ma jiraan xilka u jarayna ma dhihin laakiin washington ta yimaadaan inay white house-ka tagaan ama ay tagaan bangiga adduunka ama hay-ad kale bangi waa UN ayaga ma celin karaan laakiin wadama dowladooda inay la macaamilaan dowlad ahaan la macaamilto qolada kale ma ogin ay soo istaagaan wada gartaan marayna marka adigii laba cod kuma hadli karti hadda markaa sidaa idin leeyahay macnaheedu maaha inaan annagu ka shaqaynayno in dad la qaaday iyo dad la celiyay laakiin meesha doodu ka imaanaysa bulshada marka waxa lagu xujeynaya marka lagula fariisto waxa way adiga dowlad waddanka Soomaaliya mas-uul ka tahay security waa ka ah qofka Soomaaliya ashtaka ka ah sharci waddankay ku joogaan ma laha hadda haysa weligaa xabsi ku hay meelaha marka wadda mas-uuliyaddu culayska ay leedahay inaan isla aragno ayaan rabaa inaan meeshaas fahmno midda siika aniga waxaa culays lagu hayaa maalin kasta dad baa India ku xiran dadaa Libya ku xiran dadaa ku xiran Ethiopia dadaa halkaa ku xiran doon laakiin kuwa Yurub diid oo iska dhaabata aad su qabanin ay keenaysa marka annagu dadkeena dhinac waa laga fiirin karaayo halkan xuquuqda aadna sareysaa marka badanaa xadgudubku waa yaryahay oo qofka xabsiga ku jira halkaa waxaa laga yaabaa inuu aanu la mid ahayn qofka dadka aan daawanaynay Libya lagu ciqaabay oo torturka lagu sameynay la mid maaha oo labada xabsi haddii maanta aan mid ka saari karo midka ku hormaray ku cararayo waa halkaas marka ra'yiga guud baan rabay horta taas inaan ii sheego marka taa laga soo tago annaga dad Soomaaliyeed oo aan isku dal iyo dad maxay baa tihiin taa ka sokow waad maqlaysa lacagtii la sheegay dalka loo diray $7 milyan ka tirar marayna ay dheeraad weyn hal sano gudaheed meeqa qoys weliba waa lacag corruption ima marayso qofkii lahaa farta laga saaraya soo meeqa qoys oo Soomaaliya ayaa ku xiran noloshooda ku xiran lacagtaas maya waa wax weyn marka aad ayaa muhiim dalka amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa iyo noloshiisa aad uga tihiin qayb baa ka tihiin marka siyaasadda dibadeed ma tihiin siyaasadda gudaha iyo dalka ma tihiin marka annagu wixii dhibi marka ku ah community-ga dowladda aan magac dowladeed magaciina kusii xoojin karno aan dhinac dhigi karno waan kala hadli karno waa waxaan diyaar u nahay waana wax waajib oo masaaran laakiin midda aan idiin sheegay oo afeefta ah ee ah in marka horena isan miisaanka noogu horreeyay ahayn marka labaadna laba dal aan kala nahay oo sharciga waddanka yaalo ee aad u hoggaansan tihiin aad isku maamushaan ee aad madax ku doorateen idinkaga ka tirsan idinkaa nooga farano looyaradooda guddiyadiina associationkiina supportigiina xildhibaanada kale ku jira dowladda dhexe oo adinka laakiin constituency-giina matala saaxiibo la samaysan lahaydeen sida isu gadi lahaydeen idinka nooga aqoon badan noogana waqti badan noogana dhaqaalo badan marka aad haysugu hadlayna dowladda Soomaaliya inay idinka xalayso ilmo xaafad laga qaaday qof sharcigiisa la diiday qofka marka meesha annaga toos noo kusayso waxay qofka dhalashadiisa qofka Soomaaliya hay kala dil isku haysta annagu markhaati waa ka galnaa weliba oo sababtiga mas-uulka ka ah inay taa ka jawaabaan waa annaga si sharciya iyo dariiqa sharciga loo maro taas waa shaqadeena waa mas-uuliyaddeena kamana cararayno kamana gamba karno laakiin arrimaha kale oo dhan meel weyn oo aan kasoo geli karno oo dowlad ay kasoo geli karto dowlad qaada way yarta dowladnimada waa taqaanaan madax ayaabad leedihiin adinku aad doorateen haddaad aragtaan markaa fiiriseen iyo analysis aad samayseen meelaad is leedihiin meelahaas dowladdu waxbay ka tari kartaa hadee waad noo soo jeedin kartaa iyadoo laga soo sheegay
ولليه تاي تانا قبلنا لكن وحاسة يعني كيس كتر لكن إن برنامج كورس على دعوة وأدرت هاي تاسنا هالكاسة بحياة مدة عن الكودا يكون سابسن وحي سبيسيفيك وأقول لنا هذا الكلام وكيف جوابه ولا يجيب كلام أرماها مركز كلام اللي حلم اللي بدأ عليسك نسوا فوت ساعين ترى أنجوني مد كلا أيام كتبوا هذا صح استرونتي أنا وحنون بولي وحاول أذكر كل أيام أوكي يوم الدروس هذا خلق إلى هذا العدين أي رصاص ديار كده قيسي وضد ظهر كل التاني ضد كاس ميت كل واحد نجي ذاك يوم قريب كمذا قريب تاس واحد ممر مثل الحوتيين وقريب دولة يمن إقعام كويس معها النبي الدولة إنه هو الرئيسي يوم ما شاء الله واحد أنتاجنا هي حوتيين توحيد أهل مليه وما أقول سنين الدولة يمن نجيه أيوه marka meel aan safaarka ku jiro dadka ka taliyana aan aqoonsanay intaas oo ruuxo meyd ah oo dalkayga ahna ay yaalaan waxaan ugu adkaatay maalintii koowaad oo barnaamijka sida loo ansixiyay arrintii ugu horreysay ra'iisul wasaaraha uu tagay oo lacag uga qaaday kama qaadin laakiin aan ka diyaariyay inuu bixinayo waxay ahayd laba diblomaat oo aan rabay inaan u diro Yemen وهذا كان هذا قدرنا دولة أننا نقول سنين أولي ما نبدي دنا هدول الدول ولا نهمت هدين يمن كما ما مشاهد ويحكون عيا كم سنة ما كان دولة هاي وقت دولة هاي ويحكي إسكبر سنين سي شخصي سيمر سنين كرتي كل ما بدر النقاطي دولة بدر النقاطي تلوي بدر النقاطي رك قال بحناقي مدرنا نسكت دوريني هي أنا بدرنا هذا marka ku dambeysay hay'adda la qaybta cas oo khibradii hore aan u lahaa bari hore la shaqeyn jiray iyo maalinkeed aan aad soo xasuustay oo ka sheekaysanay ka wada hadalnay diblomaasiyadda qaarna ila hadlayna qodan aan inta la yiraahdo marka ku dambeysay ICRC iyo bisha cas ee Yemen ayaa meeshka aasay markuu ayaa aasay meedku dheer iyo banaanka yaalay dhibaato weyn naga qasbay arrintaas dadkii si sharaf leh ayaa loo aasay markii hore xataa xawaal wadareeda laga fikiray laakiin shakhsi kasta meyd kasta la naxariistay qabri guuniya ayaa lagu aasay janaasa lagu tukaday nidaamka islaamka qabay dadka loo aaso ayaa loo aasay welibana waxaa la iisoo diray oo aan haynaa oo eheladooda dhan aan la wadaagi karnaa qaarkood kasoo maraynaya reer korosmina la wadaagtay qof walba qabriga lagu aasay astaantiisa loo sameeyay marka mid kastoo ka mid ahaa midka qabrigiisu meesha yahay waa astaan waa calaamadaysantahay waa la yaqaan macnaha xagga samarka way sii kala fiican tahay marka qofka waa la aasay kaliya lagu yidhaaho iyo marka qabrigiisi kor istaagi karti oo meesha ku jiraad og tahay marka hawshaasna ilaahay waa lagu guuleeyey laakiin waxay ahayd mid ayaduna xanuunna badan waqti dheerna lagu qaadatay laakiin aan ku guulaysano soo وما ستي وراليال آدي كما هالعليا وقت كده سيسين يكسر الجلك أفرق إنه مرة ولا كداهيو بحيث أن اللقيقة ولا وكي جوابية دولة ولا دولة تانية دولة شعب وبحي ترى أدوبة هنتيرين كل بسنة نصر بكرتان بحيث أن ما بقتنا نسوي بسنة أنا قال باي وحنا ولا فيسبوك كبح أنا مركب بحده ولما جد دولة كبيرة كمان سوت هريك واحد كم تهي توسكا والله لا يقدر سؤاله يسوي كان مرة وقته هلا عن إسلام ماشي وجوابه وهل سؤال بيسوي جينا وحقياسي أبغالله كمان يلا قبا إن جلاه مرة فرق كلمة تلوين هذا حسان ده الزراعة مستقام سماه سوي لي تلفي ما سمع